السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا لهي آدي يعني سلام يا سلام كبعدي ما أنت هدي الله سبحانه وتعالى وكرر للنقضاء ويجان وحنكون حجرني وجهه ما شاء الله تبارك الله إن ما أنت وحاميس كنصارا أفر قيبات أو أيضا متقنا وجه اللوها جاجيو هدي هاي قبر مدو هارا لهيت أو هارا إيك بحلاقيهن iyo hadii aad tahay gabar wajigeedu uu yahay dry iyo hadii aad tahay gabar wajigeedu uu yahay oily intaba ma sha Allah tabarakallah aad iyo aad ayay noo anfacaysaa arrimahan dabiiciga ah inta badan ka wada hagaajisan fruitka iyo vegetable-ka iyo qaabka la iskugu daray wajiga ama aan u marinayso ama aan u cunayso ما شاء الله تبارك الله ولاله waxaan jeclahay in aan mataqaana aan isfahno programka aan wadano waxay tahay in aad iska soo dhisto inside out beauty oo macnaheedu uu yahay in jirkaagina uu helo waxyaabihii vitaminski mineralski proteinki waxyaabihii uu jirkaaga u baahnaa maqaarkaaga dhisayay caafimaadkaaga guud dhisayay energy-gaaga dhisayay si aad mataqaana gudahaaga uga qurux badnaato skin-kaaga oo meesha ugu dambaysa oo fariintii qofka jirkiisa hadii uu qofka xanuunsan yahay hadii uu gaajeysan yahay hadii uu rafaadsan yahay xagee laga gartaa skin-ka waa meeshii tabinayay marka skin-kaagana arrimahan aad iyo aad ayay mataqaana ay u dhisayaan si ay u soo celiso marka wajigaaga waxyaabaha gaaray waxa muhiim ah marka hore inaad taqaanid type of your face waxyaabaha qaarkood wax aan idinku soo diro ayada oo sawir ah waxaan idinku soo diro waxay tahay waxyaabaha qaarkood aniga ima quseeyaan mana marsan karo sababta oo ah waxaan u marsanaynin wajigaygu waa hal type waan idin la wadaagayaa ma sha Allah tabarakallah wajigaygu waa sensitive dry combinationkaas iyo wajigayga haystaa marka gabar walba waxaan rabaa in aan adiga kala baxdo waxa adiga wajigaaga quseeyo shay walba oo meesha la soo saaro ma wada marsan kartid kumana wada quseeyaan marka si aad uga faa'iideysato waa inaad ogaataa adiga ma wajigii qaleelka ahaa baa tahay adiga ma wajigii saliida lahaa baa tahay adiga ma wajigii combinationka ahaa baa tahay walaashay ma sha Allah tabarakallah اللهم صل على محمد وحيابها هدبا waxaan ka soo qaatay buuga meesha saaran ma sha Allah tabaaraka Allah oo waa wada heli kartaan walaalaha ku nool North America iyo Canada walaalahayga ku nool maxaa la yiraahdaa Soomaaliya biidnilaahi baari aniga ayaa mataqaana idinka soo qaaday oo ka faa'iideysanaysan ma sha Allah waa isla meeshii waxyaabahan hadaba aan idin la wadaagayo cabitaanada iyo waxyaabahan wajiga la marsanayo intaba waa dabiici laakiin waxaan ka rabaa adiga waa kula kaftama walaashay wajigaaga aniga ma aqaano adiga ayaa wajigaaga taqaanid ma sha Allah tabarakallah marka adiga wixii wajigaaga anfacay in aan kala baxdo oo ah type-kaaga I can guarantee you inay waxyaabo aad dadku u wada anfacay ay yihiin safe ay yihiin laakiin su'aasha meesha noo taalan waxay tahay yay safe u yihiin adiga wajigaaga waa kee waxay safe ku noqonaysaa gabadha markaan dhaho gabadha dry skin kale waxaas isticmaalaysaa safe ku noqonaysaa markaan dhaho gabadha wajigeedu uu saliid leeyahay waxaas isticmaalaysaa gabadhaas ay safe u noqonaysaa marka hadii aadan kala saari karin waxa ku kala saartaa shay walba oo aad rabto inaad isticmaasho ama allergy leedahayba shay walba oo aad rabto inaad isticmaasho marka hore wajigaaga qaaliga ah ee quruxda badan walaashayda Soomaaliyeed ama gabadha aan habaryarta u ahay wax walba dhakab ha ku siinin waxa tijaabi labadaada farood ku qaad in yar inta ka sameeyso meel yar oo xijaabka hoostiisa ah kamari hadii ay meeshaas gudud ku noqoto ama hadii ay meeshaas ku bararto ama hadii ay meeshaas ku cunto waxa ogaataa shayga asaga ah kuma shaqeynayo ayadoo ay shaygaas uu ka sameeysan yahay shayaal aad iyo aad muhiim u ah oo dadka u fiican oo caafimaad ah qof uusan u shaqeynaynin ayaa jirta marka heads up taas walaalahay waa inaan mataqaana aan wada ogaano ma sha Allah tabarakallah rather than that marka hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo labada qaybood ee soo socota codsi farabadan oo iiga imaaday aawadeed walaalo aan uga tilmaamay in labadaas mataqaana aan ka soo hadlay ma sha Allah tabarakallah hadii aad tahay wajigaaga uu yahay haara hadii aad leedahay ma sha Allah si fiican u dhageyso
haddii aad rabto inaad wejigaaga kor iyo hoos aa kasoo qaadana maasha allah tabaaraka allah dhamayso cajalka biidni illaahi baari waxyaabo fara badan oo waxaa kala kulmi doontaa aad iyo aad ee ku cajabgeliya biidni illah haddana waxaa iskaga kiinbaxayaa dhowr jeer ayaan cajaladan dhowr waqti ayay kala socotaa dhowr jeer ayaa idin salaami doonaa maasha allah tabaaraka allah salaata iga radiya markaan mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum idin dhaho soo dhawaada walaalahay iyo mataqaanaa maasha allah alaabtii hadda miiska noo saara waxaan rabaa in aan idinla wadaago research ama cilmi baaritaan lagu sameynayay beetrootska ama geedka loo yaqaano beetrifeka in aan aniga iyo adigaba aan ka faa'iideysano maasha allah tabaaraka allah culumo badan oo sayniseed ama nutrition ayaa waxay ku howlanayeen waxqabadka dhirta ama mataqaanaa maasha allah tabaaraka allah fruitka iyo vegetableka iyo dhirtaba sidoodaba siyaabaha caafimaad ee looga faa'iideysan karo haddaba bugaagta aan gacanta ku hayo oo kamid ah risaarajadii dhakhaatiirta qaar ay soo sameeyeen herbal medicine ama waxyaabaha loo yaqaano natural healing ah koodadkii iyo meelihii mataqaanaa dhakhtarkaasi uu soo qorayna biidni illaahi baari dashboardka ayaa idiin soo saari doonaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raali noqdo waan wada naqaanaa waddankayagiina aad iyo aad ayuu ooga baxaa beetraf ayaa soomaalidu u taqaanaa ama beetroots hadba sidii aa u taqaanidba faa'iidooyinka uu leeyahay faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay faa'iidooyinka isqurxinta uu leeyahay xagga skinka ah iyo isbedelka nololeed ee aa ku gaari karta maasha allah tabaaraka allah ilaahay subxaanahu watacaala geedkaas waxa uu siiyey nimcooyin fara badan haddaba geedkaasi maasha allah tabaaraka allah loo yaqaano beetrafka faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa waxaa ka mid ah kow maasha allah tabaaraka allah gabdhaha soomaaliyeed oo marka aad cabtaan cabitaankiisa ama smoothigiisa in uu gudaha wejigaaga ama skinkaaga uu siinayo glowding maxaa la yiraahdaa dhalaal skinka qofka oo soo baxa maasha allah tabaaraka allah oo qofka mataqaanaa skinkiisa uu ka dhigayo ama maqaarkiisa wejiga saaran uu ka dhigayo mid aad iyo aad mataqaanaa naciim u ah oo qurux badan allahumma salli calaa maxamed iyadoo cream ah oo aan ka sameeyey cream night cream asaga ka samaysan biidni illaahi baari hoos usii daadego waxaa ka heli doontaa youtubeyadii hore ee aan soo dhaafnay haddana waxaan u gudbayaa maasha allah tabaaraka allah dhinacii kale iyo benefitiska kale ee uu leeyahay allahumma salli calaa maxamed faa'iidooyinka kaleeto oo uu leeyahay beetrootska ayaa waxaa ka mid ah in aa uga faa'iideysaan aniga iyo adigaba walaalaha dhiikar kale dhiikarka ayuu hoos u dhigaa oo blood pressureka hoos ayuu u dhigaa wuxuu kaloo sameeyaa oo qeyb weyn uu ka qaataa caafimaadka wadnaha wuxuu kaloo qeyb weyn uu ka qaataa dhiigyarida walaalaha ama dadka ama dhalinyarada atliga ah ama sportska ku jiro aad iyo aad ayuu u anfacayaa maasha allah tabaaraka allah in uu u dhiso muruqyadooda iyo isla mar ahaantaasna in uu siiyo energy badan ama sideedaba qofka dareemaya daal dareemaya oo dhanna aad iyo aad buu wuxuu u qaadaa daalka sababta oo ah wuxuu siinayaa qofka bilow'aadmiga ah energy aad iyo aad u wanaagsan ayuu siinayaa dhinaca kale waxaa ka heli kartaa sidaan meesha ugu soo qorayba vitamins iyo minerals badan ayaa ka heli kartaa maasha allah tabaaraka allah oo ay ka mid yihiin vitamin c vitamin k vitamin e vitamin B6 zinc iron magnesium potassium iyo qaar kaleba isla mar ahaantaas rich of iron maasha allah tabaaraka allah dhiigyarida wuxuu aad iyo aad uga caawinayaa weliba dhinaca ironka ayuu aad iyo aad uga caawinayaa isla mar ahaantaasna dhiigaaga wuxuu siinayaa flow of oxygen si uu mataqaanaa wadnahaaga sababta uu u caawinayo oo dhiigana uu kor ugu qaadayo maasha allah tabaaraka allah blood pressurekana uu u dejinayo waxaa laga helaa maado kordhinaysa oxygen levelka maxaa la yirahdaa maasha allah tabaaraka allah dhiigaaga oo dhiiga uu ku kala transfer gareynayo dhiiga uu ku kala soconayo maasha allah tabaaraka allah nimcooyinkaas oo dhan ayuu leeyahay dhinaca kale wuxuu bixinayaa marka aad heshid elementiga uu leeyahay qofka marka uu cuno wuxuu u korinayaa maasha allah tabaaraka allah timaha cidiyaha skinkana mataqaanaa maasha allah tabaaraka allah kor ayuu ugu soo qaadayaa oo qofka mataqaanaa skinkiisa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha gudaha ka dhalaaliya dusha haddii laga marsadana maasha allah tabaaraka allah dhalaalin kara ayuu mataqaanaa uu ka mid yahay
wuxuu kaloo faa'iidada kaleeto ee weyn ee uu xambaarsan yahay ayaa waxay tahay wuxuu kor u qaadaa difaaca jirka ayuu kor u qaadaa oo immune systemka ruuxa ayuu wuxuu u qaadaa kor u qaadaa oo qofka mataqaanaa qaata beetrootiska qaata weekii hal mar ama laba mar walba wuxuu xoojinayaa immune systemkiisa ayuu aad iyo aad u xoojinayaa allahumma salli calaa maxamed haddii uu laakiin ma fiicna in qofka maalin walba uu qaato muddo dheer laakiin waxaa loo baahan yahay qofka inuu soo celceliyo oo bishiiba adiga uu ka helo mataqaanaa wiigiiba uu ka helo waxaan dhihi rabaa kaab uu ka helo maasha allah tabaarakallah ama wiigiiba laba kaab uu ka helo haddii aad tahay walaalaha sameynaya ee ku howlsan in ay cayilka iska dhimaan maasha allah tabaarakallah wuxuu ku geli karaa positionka cuntada ayuu ku geli karaa asaga iyo salarkiisaba isla mar ahaantaasna waxaa ka helaysaa dharag zaa'id ah ayaa ka helaysaa jirkaagana wuxuu u fakshan garaynayaa ama uu u shaqaynayaa si wanaagsan ayuu u shaqaynayaa adiga oo yaraysanaya of course cuntooyinka kale laakiin waa inaa wadaa maxaa la maasha allah tabaarakallah aa la heshaa exercise zaa'id ah waa inaa la heshaa maasha allah tabaarakallah oo dadka atliiga sameynaya sportska dheela maasha allah tabaarakallah cayilkooda dhigaya iyagana goonidooda ayuu zaa'id mataqaanaa ugu anfacaa ma aha dadka kale inuu idin caataynayo laakiin maadaama uu powerful uu yahay dadka badanaa waxaa tradition u ah ama waxaa dhaqan u ah qofka marka uu rabo inuu cayilkiisa uu dhimo wuxuu jarayaa ama uu yaraynayaa cuntooyinkii usually caadiga ahaa ee uu cuni jiray marka halkaasma haddii uu qaato maalin walba kaab isaga meeshii ayuu u buuxinayaa laakiin ruuxa kale ee cuntooyinkiisa kale cunaya maasha allah tabaarakallah maxaa la yiraahdaa isaga wuxuu u baahan yahay inuu maalinkii wiigi inuu hal koob qaato ama wiigi inuu laba kaab qaato maasha allah tabaarakallah also waxaa kaloo u isticmaali kartaa qeyb yar oo isaga ah in waxyaabaha kale oo aad shiidanaysid aad ku dartid haddaba wuxuu ku imaadaa noocyo fara badan ayuu ku imaadaa maasha allah tabaarakallah waxaa ugu muhiimsan marka uu yahay dhirta sideeda u baxday oo ilaahay subxaanahu watacaala beetrootkii ama baytiraafkii oo organic ah oo mataqaanaa gacantaada ah ku samaysatay that is the best way maasha allah tabaarakallah other way around waxaa heli kartaa isaga oo ah budo ah oo lasoo shiiday organic storada ayaa laga helaa inkasta oo wax yar macaankiisu uu badan yahay oo aa u baahan tahay markaas in aa ku darsato ama aa ku dhex qasato cabitaano kale ama fruit kaleeto ama vegetable kale in aa mataqaana aa ku darsato maasha allah tabaarakallah isagoo kaniini ahna waa jiraa qofkii u baahan balse waxaan dooran lahaa maadaama aan jeclahay inaan idinla qaybsado jiritaanka ay jirto inaan idin sheego waa mataqaana maasha allah tabaarakallah waxaa weeyaan wax lama huraan ah ayaa joyskaaga iskale laakiin haddii aad tiraahdo umumunay maxaa qaadan lahayd waxaan qaadan lahaa midka aan aniga gacantayda ku shiito adna kaasaan kula jeclahay maasha allah tabaarakallah inaa mataqaanaa asagii oo qoyan intaa soo qaadatid lacag badanna ma joogo maasha allah meelaha qaarkood meelaha kale allahu aclam kama warqabo laakiin waa accessful meelo badanaa laga helaa waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha allah tabaarakallah in wadankeeni laga helo soomaaliya laga helo africa laga helo maasha allah tabaarakallah walaalahay reer soomaaliya reer africa maasha allah tabaarakallah gacmo furan soo dhawaada in idinkana mataqaana aad iyo aad uga faa'iideysataan maasha allah tabaarakallah meel walba oo aan joognaba waxaan nahay ummad soomaaliyeed ayaan nahay walaalaheen soomaaliyeed iyo wadankeenana maasha allah tabaarakallah meel wuxuu noogaga yaalaa maasha allah tabaarakallah aad iyo aad u fog marka ka faa'iideysta walaalaha kale ee soomaaliyeed dunida dacaladeeda meel allaali iyo meesha aad ka joogtaanba waa ka wada faa'iideysan kartaan aad iyo aad buu mataqaanaa u qiimo badan yahay marka inaad waxyaabaha aad ku darayso noloshaada aad ku darayso caafimaadku waa qaali marka waxaana laga rabaa aniga iyo adigaba inaan waxyaabo fara badan daily basiskeena aan mataqaanaa nolosheena aan ku darno mararka qaarkoodna aan nolosheena aan ka bedelno oo ay ugu weyn tahay waxa aad consume garaynayso waxa aad qaadanayso maasha allah tabaarakallah marka beetrootiska siyaabahaas oo dhan ha looga faa'iideysto ruuxii xanuun
xanuuna qaas aleh biidni illaahi baari dhakhtarkaaga la tasho mar walba ee consulti gare ee dhakhtarkaaga si mataqaanaa oo la wadaagto waxyaabaha aad qaadanayso iyo waxyaabaha aad cunayso laakiin haddaba researchkan ama cilmi baaritaankan aan idinla sheergareeyay waa well known meel walba ayaa mataqaanaa aad ka heli kartaan dhaqaatiirtiina ayaa la sheergareyn kartaan munaafacaadka iyo mataqaanaa maasha allah tabaarakallah waxyaabaha uu leeyahay oo aad weydiin kartaan biidni illaahi baari ilaahay subxaanahu watacaala waxaan idinka rajaynaya aniga iyo idinkaba kuwa mataqaanaa ka faa'iidaysta in aan noqono waxyaabaha dabiiciga ah sida dabiiciga u baxay hadda adduunka uu iskugu tagay maasha allah tabaarakallah all study la arko all food is a medicine walaalahay Soomaaliyeedow cuntada ayaa waxay tahay daawada koowaad waa cuntada maasha allah tabaarakallah ruux walba sa u hagaajin lahayd kor u qaadi lahayd inaa cunto caafimaad qabto oo fasiixi ah dabiici ah in aan hesho biidni illaahi baari aniga iyo adigaba aan ku dadaalno waa walaashiin umuna oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أممنا iyo mar kale walaalayaal caawa idii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo waxaan idin la wadaagi doonaa laba arrimood oo ku saabsan laba shay ah oo ku saabsan sida wajiga looga saaro madowga ama haaraha ama pimpleska iyo waxyaabaha dhaadhaadka mataqaanaa wajiga gala sida looga nadiifiyo hadii aad tahay skinkaagu hadii uu saliid leeyahay iyo skinkaaga haduu qalalan yahayba tan labada qofba way u shaqeynaysaa oo labada dhinacba marka labadan ingredient caawa aan wadaagayno midka koowaad maasha allah tabaarakallah waxa uu ka kooban yahay malab moos yogurt iyo bariiska la shiiday qaado kamid ah ayuu ka kooban yahay maasha allah tabaarakallah intaas marka aad isku qasto oo aad u marsato wajigaaga waxa dhacaysa in uu wajigaaga maasha allah tabaarakallah uu ka baxo waxaana ku haynaysaa muddo dhan ilaa iyo 20 daqiiqo biidni illah ha ka badinin 20 daqiiqo waxaa ku wadaysaa si aad u aragto isbedel dhaqso ah si aad u aragto ilaa iyo muddo ah 2 week ayaa ku wadaysaa wajigaaga 20 daqiiqo maalin walba muddo ah 2 week ayaad ku wadaysaa maasha allah tabaarakallah haddana waxaan u gudbaynaa ingredient-kii labaad ayaan u gudbi doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo walaal hadii aad ka hesho janaalkan iyo waxyaabaha aan idin la share gareeyo biidnillah share garee comment garee maasha allah tabaarakallah commentigiina aad iyo aad ayaan ugu baahanahay si mataqaanaa waxyaabaha aad u baahan tihiin aad ila socodsiisaan ilaa qofka kale waa ka duwan yahay insha allah biidnillahi alkareem commentigiina biidnillahi baari ii soo raaciya hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo share gareeyana allahumma salli ala muhammad waxaan u gudbaynaa ingredient-ka labaad oo ka kooban maasha allah tabaarakallah wuxuu ka kooban yahay baradho iyo orange juice ayuu ka kooban yahay baradhada iyo orange juice-ka ayagana same thing sidaas la isugu shiiday ayaa iskugu shiidaysaa wajiga marinaysaa marka wajigaaga mariso waxa ku haynaysaa maasha allah tabaarakallah ilaa iyo muddo 20 daqiiqo ah ku haynaysaa same rule ayaa faaro gareynaysaa orange juice-na waa isticmaali kartaa اللهم صل على محمد كاروت سوسنا استعمال كرتا labadaba way ku shaqeynayaan ma sha Allah tabaaraka Allah waxa kale oo iyadana mataqaanaa saddexaad oo noogu jirto waxa kale soo qaadan kartaa hal xabo oo baradho ah sida looga saarayo biyaha ma sha Allah tabaaraka Allah videoga ayaan idin kula share gareeyay biyaha ayaa mataqaanaa aad ka saaraysaa wax yar oo roos waarar ana waad ku daraysaa biyaha ubaxa ah na waad ku daraysaa ayagana waxa loo isticmaalaa in
wejiga lagu buufiyo muddo 20 daqiiqo. haddaba saddexdan arrimood hal mar ma wada sameynaysid, marba mid tijaabi biidnillaahi baari. ilana soo sheer garee oo ila soo wadaag. ilaahay subxaanahu watacaala ha ku naxariistee haddii mataqaanaa uu wejigaaga uu wax iskaga bedelay. allahuma salli calaa maxamed. dhammaan walaalahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan idinka baryayaa ruux walba ujeedada uu leeyahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu gaarsiiyo. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.